Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalayaal. Iminka waa subaxdii markaan soo kaco salaada la tukado waxaan sameeyaa cuntada ilmahayga yar baan u sameeyaa quraacda waxa ugu horeeyaan sameeyo. Marka waxaan jeclaystay cuntooyinka caruurta badanaad dadku deema ama cidma soo dhigto badanaa. Marka waxaan jeclaystay ilmahayga yar cuntooyinka badanaa u sameeyana idin la wadaago. Ood hadad ka heshaana idin soo badiyo comment-kadii ku soo qortaan. Marka iminka walaalayaal wakaas xabad muusa ayaan u baahneen haday ilmuhu caruurtu ka badan yihiin dee waad uga kordhin kartaa. Xabad muusa ayaan jarjaradana sida arki doontaan. Marka walaalayaal haddaad igu cusubtiin ku soo dhawaada YouTube channel-kayga magacayga Huda la yiraahdaa. Fadlan ha iga iloobina subscribe, like, comment and share. Video-ga hadduu idin cajabiyana comment-ka igu soo qora. Sidoo kale like ha iga iloobina walaalayaal aniga wax weyn bay taraysaa. Marka wakaas muuska sidaa yarar baan jarjaradana. Bacdeen koob baad soo qaadaysaa ama waa qof baday wuxuu haysto kale koob baan marka soo qaatay sidaas ayaan xoog ugu yara dejinayaa muuska sidaad arkaysaan. mid kasta wakaas saasan sameynayaa. Marka waan jeclaystay inaan bal cuntooyinka caruurtan soo geliyo oo ka faa'iidaan maadaama Ramadaan soo galasana badanaa markaynu soomanahay caruurtu dee hooyooyinku ka fikiraan cuntooyin maxaynu siinaa. Marka taniimka kale waa snack fudud ilmuhu markuu ilkuhu u soo baxayaan oo kale way u fiican tahay waad arki doontaan xagga dambe talaagada la gelinayaa. Marka ilmuhu markuu ilkuhu soo baxayaan oo kale u fiican tahay caruurta kale way cuni karaan snack yaro caafimaad qaba weeye cunto caafimaad qabta oo caruurtuna dee jeclaan doonaan. Marka iminka ilmahay aniga muuska ma jeclaa bacdeen waxaan siri sidan tijaabi bal inuu bal sidaa ku cuno masha Allah sidan buu kaga helayba sidan buu muuskii ku cunay. Iminka waad arkaysaan yogurtka baan soo qaadanayaa. Yogurtkaas baan isticmaalayaa noocaas marka dusha ayaabaan muuska saa uga marinayaa. sidaas ayaan dusha muuska uga yara marmarinayaa yar. Masha Allah aad bay u macaan tahay caruurtu way ka heli doonaan hubaal waliba hadduu ilmuhu ilkihii u soo baxayaan caruurta ilkuhu markay u soo baxayaan way xanuunaan marka aad buu anfacayaa. Caruurta kalena way cuni karaan dee way fudud tahay hooyadu markii uu sameynaysaa ilmuhuna masha Allah markiiba waad siinaysaa ilmaha. Marka walaalayaal haddaad jeceshiin fiidiyoyada cuntada caruurta inaan idin soo dhigo comment-ka igu soo qora. Markaas qof mid baa yar baad saa u marinaysaa marka dusha peanut butter ayaa dusha kaga yara daadin kartaa oo amaano imika man haysan karameel yar baan dusha ka in yar aan badnayn dee macaan badan ma fiicna in yar ayaabaan sidaa ugu daadinayaa sidaad arkaysaan. Marka dusha idinku qofku wuxuu jecel yahay dusha kaga daadin karaa. Masha Allah wallahi hadal ma baahna ilmahaygu masha Allah u dhameeyay isagoo muuska aan cuni jirin oo muuska jeclaan oo muuska ka usus jiro nacay masha Allah imika inta markaan saa ugu sameeyay saa uga dhigay oo cunay ilkuhuna maadaama uu soo baxayaan aad buu nafis buu ku noqonayaa. Marka talaagada ayaan in yar gelidanaa markuu in yar ay yogurtka isku keen qabsato ayaan ka soo saarnaa xoogna qabow yaanu inooga noqonin waayo caruurta qabowga badan uma fiicna. Marka masha Allah markaan talaagadii ka soo saaray saas soo baxay hadal uma baahna macala dadka waaweyn anaaba ka helayba macala dadka waaweyn baa cuni kara aad baan uga helayba aad buu macaan buu noqdaa kaas. markaas walaalayaal ka faa'iideysta baan leeyahay caruurta snack yar fudud sameeya. Imikana walaalayaal waxaan quraacdii ayaabaan sameynayaa ilmahayga yar quraacdiisa marba subaxba wax baan u sameeyaa badanaa. Marka imika tan waa quraac caafimaad qabta tufaaxna waan ku daraa imika laakiin tufaax maanta maan haysan marka waa boorash 2 xabo beeda iyo muus iyo caano
intaas ayaan isku shiidayaa. marka tufaaxna way fiican tahay inaan ku daro iyo yogurt dad haysid yogurtna aad buu u fiican yahay. marka intaas dad isku darsid ma sha Allah ilmuhu ka heli doonaa. kaas waan isku wada darayaa gebi markaan isku wada daro kabacdi baan isku shiiday. marka macaan ba uma baahna waa muuskiiba meesha ku jira iyo caanihiiba. hadduu macaankaas tiraadan dee muxuu ahaa caruurta qaar ba jecel. hadduu dhadhan yar aad rabtid wax far yar suul sonkor yar baad ugu dari kartaa ama muxuu ahaa wax yar oo kale aad muxuu ahaa peanut butter iyo dushaad kaga daadin kartaa ilmaha markaad hadhow samaysid. marka waa mini pancake waan ka sameeyay boorash caano beed iyo xabad muusa. tufaaxna waan ku daraa marka haddaad haysatid tufaax imikana waad ku darsan kartaa tufaax. marka imika intaan saas kugu wada darno ayaynu isku soo shiidi doonaa. markaan soo shiiday caagadan yar ayaan isticmaalayaa oon ku shubtay soo ilmaha aan xoog ugu weynaan. caruurtu markay sii yaryar yihiin marka ay ku waaweyn laftirkeeda waa caadi shape fiican buu ku sameynaysaa. laakiin markuu ilmuhu yar yahay inuu dee mar khaliya isagu qacantiisa ku qaadan karaa fiican oo aan cunahana dee u istaagin. aad buu jilicsan yahay wallahi ma sha Allah ilmaha ma dhibaayo. وبال caruurtu way ka heli doonaan u sameeyaa walaalayaal. haddaad fiidiyoda cuntada caruurta jeceshiina comment-ka igu soo qoreen idin soo geliyo ama aad fiidiyogan ka hesheen walaalayaal. marka ma sha Allah saas bay noo soo baxay. ilmuhu markiiba cunaya dhinac marka strawberry ama cinab ayaad muxuu ahaa markaad siinay sida ugu samee dhinac uga dhigi kartaa oo isku cuni karaa labadaba. waa cunto caafimaad leh. marka walaalayaal hadduu fiidiyoogu idin cajabiyey comment-ka igu soo qoraa. sidoo kale ha iga iloobina like aniga wax weyn bay taraysaa. waad ku mahadsantihiin intaad daawanayseen. sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.